السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. رمضان مبارك. كسو دو أكرم أونلاين كوليج waxaan kugu bishaareynaya in sanadkan ardayda fasalka form 4 aynu u sameynay naqtiin maadooyinka scientifiga iyo waliba luqadda Ingiriiska ah. maadooyinka scientifiga ah iyo luqadda Ingiriisiga ardayda Soomaaliyeed sanadkan waxaan ugu talagalnay inaan inta karaankeena ah aan qayb ka naqano kuwa guuleysta oo imtixaanka dawladda ku guuleysta hadduu Ilaahay ogolaado insha Allah. waxaan isugu keenay dhammaan qaybaha aan isleenahay ama aan islahayn muhiim waaye oo ardayga inuu wax ka ogaado si guud ahaan maadadaas xitaa marka imtixaanka laga reebo ayaan ururinay isla markaana waan duubnay. inta ka war haysa hal muuqaal ka mid ah ayaan waxaan idinkula wadaagnay barteena YouTube, Facebook ee Akram Online College. waxaa suuroobi weysay muddada oo kooban iyo casharadii oo xoogaa tiro badan in aan hal qayb u soo gelino YouTube-ka iyadoo laga jawaabayo baahidaasna waxaanu sameynay bog Telegram ah oo ardaydu ay si toos ah u soo gali karaan isla markaana ay ka faa'iideysan karaan. qaybta hoose ee muuqaalkan waxaan kugu wadaagi doonaa linkiga Telegram-kaas. linkiga markaad joogsiiso automatic wuxuu kugu xiri doonaa groupkan Telegram oo ay casharada ku jiraan. waxaad awoodi kartaa in saaxiibka aad ka xiriirsato internet kadibna aad Telegram-kaaga ku degsato muuqaalada gurigaaga markaa aadidna aad sidaas ku daawatid meel walba aad joogto. haddii aad ku nooshahay gobol internetkuna culus yahay waxaad awood u leedahay inaad soo aado meel laga heli karo internet aad degsato muuqaaladaada kadibna aad la aado gurigaagii oo aad sidaas ku daawato. Akram Online College sanadkan qaybta uu ka qaadanayo caawinta ardayda Soomaaliyeed ma ahan exam bank wax loo yaqaano ama inuu imtixaanaad ka shaqeeyo. Akram Online College wuxuu wax ka arkaa meel ka duwan meesha ay wax ka arkaan macallimiin Soomaaliyeed Allah barakeeye. waxaan rabnaa in ardaygu aan siino information ma rabno in ardaygu aan siino imtixaan hore loo galay. waxaan u sameyn doonaa imtixaan unidiyada ah oo anagu aan diyaarinayno kaas oo aan ugu talagalnay unidkii uu soo qaatay in wax ka fahmo. waxaan isku dayeynaa si guud ahaan unidka koowaad ilaa unidka ugu dambeeya maado walba oo scientifiga iyo English ka mid ah inaan si kooban u siino ardayda Soomaaliyeed.